dhinacyada kale ee suugaantiisa waxa uu iyadoo gudbinaysa fariimo badan oo laga yaabo inaanay dad fara badan oo Soomaali fahmin marka loogu sheego af Carabiga tusaale ahaanna waxa uu Cabdiqays Maansadan soo socota uu kaga hadlayaa dhibaatadii uu nebigu nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu ka soo mutay fidintii diinta islaamka habeenkii dhawaaqii waxyigu ku soo dhacay ee sida dheh lagu yiri dhaqanka iyo caadada dhulka kale adaga midashiisa gowraca diddig nolosha lagu dilo dhaadashada qabiilka iyo dhoodka iyo goodiga dadkoo dhagar xalaalsaday khamaarkoo dhar lagu helo dhayal turubka loo rogo khamrigoo la dhuunyado dhalinyaro iyo waayeel waxa uunka dhogol dhalan rogo dhoomaha la buuxsado tiyo dhagax la caabudo sanan dhooba laga qoray ilaahay la garab dhigo bulsho dhimatay waa tii dhaqdhaqaaji lagu yiri dhagaxu u yeeriyo geedkii soo dhaqaaq dayaxii dambalanyo aayadaha uu soo dhigay ma dhubtaan kufaartay dhalantii sidiisay waalnoodu u dhaartay markay dhaadi waayeen dilkiisana ku dhaarteen in soo dhex taagna waa tii dhuuma